wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Nuur Caraale Duur ayaa maanta xarunta dowladda hoose degmada Burco kulan balaaran kula qaatay xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Burco kulankan ay sida wada jirka u qaatay wasiirka arrimaha gudaha iyo xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Burco ayaa mid la isku xog wareysanayay isla markaasna lagaga doodayay mudaharaadkiisa oo dhimashada iyo dhaawaca ay dhawaan ka dhacay gobolka Togdheer wuxuuna wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland kulankiisaasi ku weelinayay gudoomiyaha gobolka Togdheer Axmed Cumar Xaaji Cabdilaahi Xamarji iyo qaar ka mid ah isuduwayaasha laamaha dawladda ee gobolka wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Nuur Caraale Duur oo kulankaasi ka hadlay ayaa xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Burco ku booriyay inay ka shaqeeyaan isoo jeedista dhammaan beelaha deegaanka gobolkani wuxuuna wasiirku mar uu ka hadlayay dhacdadii foosha xumeed ee ka dhacday magaalada Burco uu xusay inuu falkaasi ahaa mid u dhacay sifo khaldan wuxuuna ciidanka RRU ku booriyay inay ka fiirsadaan arrimaha noocaas oo kala waxa keenay maamulkii guddoolooyin buu leeyahay waxa kaloo muuqata bulshada laftigeedii inay kulamadeedii iyo isku xirnaanteedii ay aad u yartay liidato marka labadan qodob baan u gudbaa inaan eego guddoolooyinkii maamulka iyo inaan bulshadii aanu dib u ururino oo aanu midayno oo kulamo u qabanno wixii halkaa ka dhacay geerida iyo dhaawacuba ku yimaadeen waxaanu u aragnay inay khalad tahay wasiir Duur ayaa dhinaca kale ka hadlay kulamo ilaa shalay u socday dadkii uu kaga geeriyooday marxuumkii ku dhintay mudaharaadkii iyo waliba kuwii ku dhaawacmay wuxuuna wasiirku cadeeyay in la aasay marxuumkii ku geeriyooday mudaharaadkaasi maalintii shalahayd isla markaasna uu ku dhamaaday safgarad iyo waan dhex marta xukuumadda iyo beesha uu ka soo jeeday marxuumkaasi maamulkii gobolkan la kulmay golihii deegaankan la kulmay booliskii baan la kulmay sidoo kale waxaan la kulmay bulshadii dacaladeedii oo dhan waxaana ii socon doontaa ilaa habeen dambe insha Allah finally waxaan qaban doonaa kulan weyn oo bulshada Burco ay ku sheekaysato isugu timaado oo ay waxan yadu kaga tashato waayo nabadgelyadu waxay ku tiirsan tahay bulshadeeda Maxamed Ibrahim Xasan